waxaa maanta oo axad ah magaalada Kismaayo ka qabsoomay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ku saabsanayd soo afmeeridda ololaha 16 bari ee tacadiyada ka dhanka ah jinsiga. munaasabada oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid yihiin wasiirka haweenka Marwo Cadar Cabdullaahi Ismaaciil, wasiir ku-xigeenka Idil Maxamed Mursal, madax sare oo ka socotay hay'adaha qaramada midoobay, kuwa caalamiga ah, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Idil Maxamed Mursal, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka oo ugu horeyn fagaaraha ka hadashay, ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay leedahay maalintan iyo howlihii ay qabatay wasaaraddu 15 bari ee uu socday ololahani. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib faahfaahin uma baahna waxa maanta meeshaan isugu imaanay boorka hortiina ka muuqda marqaati ka ah waxaan maanta meeshaan isugu imaanay xiritaanka 16 maalmood ee noo soo socday shaqooyinka maanta oo waliba ay ku aadan tahay maalinta xuquuqul insaanka waxaan leeyahay barnaamijku waa noo furan yahay soo dhawaada wixii faahfaahin iyo wixii la soo qabtay insha Allah tacaala wasiirada noo faahfaahin doonto barnaamijkeena waa noo furan yahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi. guud ahaan dadkii kala duwanaa ee khudbadaha dhinacyada badan taabanayay jeediyay ayaa isku raaceen si loo yareeyo shaqaaqooyinka dumarka iyo caruurta in wax la baro. waxyaabo yar oo sii jira arrimaha qoyska u sii badan ay ka soo hadashay wasaaradda in badan dadka ay ka wacyigelisay 16 maalmood hadda aan soo dhaafnay. aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda shaqada wanaagsan ee haweenka ay la wadaagtay iyo sinnaarada ay noo qabatay iyo kororsiga ay haweenka siisay in aan wax ka qabanno barnaamijyada soo noqnoqonaya shaqaaqooyinka in aan wax ka qabanno aan noqono dad anaga wax tarsan kara wax qabsan kara iska celin kara ragga aan kula dagaalami karno dhibaatada loo geysanayo qodobadii aan uga hortaginay waxaan samayn lahayn. aniga waxaan shaqeeyaa gudniinka gabdhaha qaas ahaan markii laga tago xuquuqda aadanaha waxaa aad ugu ololeeyaa ciribtirka gudniinka gabdhaha. saa ognahay Soomaaliya gudniinka gabdhaha 98% gabdhaha waa la gudaa waxay u dhintaan dhiigba hooyooyinka sidoo kale dhibaatooyin badan oo kala duwan soo wajaha. waxaan ku faraxsanahay barnaamij oo aan soo hindisay 6 sano ka hor oo loogu magac daray Gacale gabadheedii oo Muqdisho aan kusoo bandhignay September sanadkan oo haddana daafurkiisa labaad insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo aan Jubbaland berito lagu qaban doono Kismaayo iyadoo ay hogaamiyeyso wasiirada haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. wasaaradda haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed basidooda hore ma aha sida qodooyinka loo siiyay oo aan kor loogu soo qaadayba aad bay u dadaalayaan nooc kasta oo rafiiriya xagga wadaninimada horumarinta wacyigelinta iyo guubaabada iyo waxqabadka aad bay u dheeraynayaan. marka intaas haddaad martaas aad tihiin dowladda annagu waxaan ka turjumi karaa aan hadda joogno dhexdeeda ka hadlayno dowlad goboleedka Jubbaland go-aanka annagu waxaa weeye inaan wasaaradda iyo gabdhaha hor u qaadno. mas-uuliyiinta ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ayaa iyana dhankooda xusay inay ku faraxsan yihiin howlaha la xiriira horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee ay wado wasaaradda haweenka Jubbaland. Ladies and gentlemen, allow me at this very juncture to say a few words regarding the 16 days of activism that we've just concluded today. gabagabadii wasiir Cadar Cabdullaahi Ismaaciil oo soo xirtay madasha ayaa carabka ku adkaysay in wasaaradda iyo bahwadaagteeda oo ay ugu horeeyaan hay'adaha ay guulo aan caadi ahayn ka gaareen shaqooyinkii ay wada qabteen. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت فرحت إذا لما سوكو بكرة ما دام نحكي طبعا مع الموت أو كسو جرني
ololihii maaragtay 16 dayska oon ugu ololeynaynay barnaamijyada kala duwan ee tacdiyada iyo waxyaabaha ka dhaca ama ku dhaca haweenka oo kala duwanaa waxyaabahaasoo dhan iyo maanta oon soo gabagabaynayno aad iyo aad aan u faraxsanahay haddii aysan ka qayb qaadanin hay-adaha kala duwan ee walaalaheena ah iyo shaqaalaha wasaaradda iyo haweenka kala duwan ee ku nool Jubbaland arrintan ma aysan suurtoobeen dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida barnaamijka uga qayb qaadateen haddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka annaga mar walba way naga go-an tahay inaan wixii aan xaq u leenahay ama nagu aadan sida ay tahay inaan uga soo dhalaalno aad iyo aad u mahadsantihiin shirkeennana wuu inoo xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Jubbaland ayaa la aaminsan yahay in ay ugu horeyso yaraynta shaqaaqooyinka ka dhanka ah haweenka iyo carruurta taasina waxa ay ku timid dadaallo iyo waqti dheer oo la geliyay waxaa kaloo jirtay in la sameeyay xeerar fara badan oo la xiriira kor u qaadidda nolosha carruurta iyo ilaalinta dumarka Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo